السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halka wareelka shacabka YouTube kanuna waa Abduqaadir Xasan oo duuliye is arag wanaagsan kulan kale oo xiiso leh. Maanta muuqaalkan waxaan uga hadli doonaa fiisaha wadanka Poland sidee lagu helaa, halkee laga xareystaa, sidee loo xareystaa. Maanta muuqaalkan ayaan ku qaadaa dhigi doonaa oo aan ku faahfaahin doonaa. Haddaba inta aan muuqaalka u guda gelin waxaan ku leeyahay marka hore soo dhawow YouTube subscribe inoo sar waa inoo dhiirigelin waana hore u socod sidoo kale muuqaalka laagta inoogu sharaf. dad asxaab ah oo YouTube-kayga ku xiran ay badanaa isoo weydiiyeen su'aasha ah fiisaha Poland halkee laga helaa. fiisaha Poland ka soo hadal. fiisaha sida lagu helo, wadada loo maro iyo markaasi sidii ay dhalinyarada Soomaaliyeed hadii ay doonayaan in ay xareystaan ay ku xareysan lahaayeen. muuqaalka ayaan hadda u gudbi doonaa oo aan step ku tusi doonaa meelaha laga helo iyo sida loo xareysto. laakiin ka hor waxaan kuu sheegayaa processkan aan mari doono ayuu qof walba oo markaa barnaamijkan xareysanaya uu maraa. haddii markaa agenciyada loo tago ama qolooyinka badanaa barnaamijyada fiisaha noocaan dadka ka iibsada noocaan oo kale ayay maraan. marka waxaan ku leeyahay meeshii lacag 10,000 ama 5,000 lagaaga qaadan lahaa ayaa maanta waxaan ku leeyahay si lacag la'aan adigu ku sameyso, adigu markaa ku practice isla markaana qaabkaas u xareyso. marka lacag badan ayaan ku baajin doonaa insha Allah, waana ku guuleysan doontaa. kali ah laba shuruud ayaa laga rabaa. mid haddaad weydo mid kale waa qasab. labada shuruud waxay yihiin marka ugu horeysa horta waa inaad English ka taqaanaa. macnaha waxaan ka wadaa Englishka waa inaad akhrin kartaa ayaa aad u muhiim ah oo aad fahmi kartaa. meelaha la buuxinayo waa inaad English ahaan aad u taqaano oo aad buuxsan kartaa. website-ka ama meesha laga helo fiisaha laga xareysanayo waxa la buuxiyaa form. marka formkaasi badankiisa waa English waana erayo fudud oo badan aad maqashid. haddii aad markaa intaas aad taqaan waa okay, laakiin haddii aad aqoon waxaan ku leeyahay qof kale oo luqadda ka caawiya raaso asaga markaa ayaa intaas yarta ka caawin doona. haddaba isla socod wanaagsan. marka ugu horeysa Google-ka ayaad imaanaysaa. halkan waa Google-ka waxa ku qoranaysaa Poland genau Visa Kenya ayaa ku qoraysaa. halkaa kuu soo baxaya midaas kor ku dhufanaysaa. hadaa rabto midka inbaska ku dhufanay. marka iska badaa midkan waxa waa website-ka ay leedahay dawladdu leedahay ee guud ee markaa ka hadlaya warbixinada iyo fiisaha iyo dadka waxyaabaha laga doonayo dhammaan. midkan shuruuduhu ka hadlaya. annaga markaa ka marabno waxaan raadinaynaa midka ugu fududeeya ee badanaa laga helo fiisaha. adi laftarkaaga waa baari kartaa general information oo kala waatan waa arkaysaa. marka warbixinada dheeraad haddaad rabto xataa waa ka raadsan kartaa, kiiskan ka fiirfiirin kartaa. tan marka midaan ani ila qumanaatay oo marka raadiye aan helay ayaan idin tusayaa. ka soco waa midaan hoose, midaan waaye ay ku qoran tahay Embassy of Poland in Kenya ay ku qoran tahay. marka waa lagu dhufanayaa, waan ku dhufanaysaa. marka ku dhufatay markaas sidaan ayaa ku soo baxaysa. wajigan kuwaad ayaa ku soo baxaya. halkan ay degan yihiin waa Red Hill Road oo kale ay degan yihiin. adresskooda waaye Kenya Nairobi. marka lambaradooda kuwaan halkan ay lambaro ku leeyihiin. haddii la rabo qofka uu la hadli karaa information hadduu rabo, ama faxkooda waa kan ama emailkooda waa kan laftarkiisa. marka Kenya ayaa ku taala sida arkaysin. consul in Mombasa oo kale way ku taalaa qaybtan. marka ka soco. marka anaga qaybta rabno waa qaybtan waa apply from Poland visa online. midaan waa marka waa ku dhufanaysaa oo mid ka xareysan doono fiisaha. waa ku dhufanaynaa processkan uu keenaa. midaan marka dad ana ku buuxiyo darteed adigu waa dooranaysaa oo kale you travel meesha adiga aad u socotid oo kale wadanka aad u socotid oo kale waa kan waa Poland aad ku buuxsanaysaa. halkan ku dhufanaysaa. halkan kuwaad waa tourism dalxiis miyaa tahay, business miyaa tahay oo fiisa business marata, business visa consul and tourism visa oo kale miyaad rabtaa. tourism visa ku dhufsanaynaa. marka anaga wuu naga diiday laakiin midaan koraan isticmaalaynaa tourism visa ayaan isticmaalaynaa. tan uu yeelay inka day week. halkan marka citizen oo kale citizenship wadanka u dhalato oo kale waa kan
waa Soomaaliya live in Kenya ka leedahay. Hadda aragtid Soomaaliya waa dooran kartaa, hadda aragtid Kenya waa dooran kartaa. Sidaan kuugu soo saara marka apply online soo ma ujeedid recover a visa oo kale watan marka full information oo kale halkan ku qoran tahay waxyaabaha laga rabo dhan halkan ayay ku qoran yihiin sawirka laga rabo fiisaha iyo waxyaabaha doonayso kale lottery oo kale cover information badan ama warbixin badan ayaa halkan ku qoran. Marka annaga marka halkan rabno waa halkan ay ku qoran tahay get to start. meeshaan ayaan ku dhufanaynaa. Halkan markaan ku dhufanno waxaa noo soo baxaya marka koowaad form oo ku dhufanaya form ayaa ku soo baxaya visa to Poland, macnaha fiisaha Poland aad ku tagays. Marka waa kan kadib payment halkan ku qoran upload documentigaaga halkan aad macnaha aad ku shubaysaa oo documentiyada aad haysato halkan ku shubaysaa. lacagta la bixinayana wax waaye waa $99. marka halkan markaad fiirisid waa tan next business day oo kale ka soco. marka halkan full name kaaga magacaaga nin ma tahay ma gabar baa tahay taariikhda dhalashadaada place of birth halka ku dhalato kale waa tan dhamaantood. marka Soomaali kale current citizen oo kale Soomaaliya tahay. marka contact of email to older email kaaga halkan ku qoraysaa wax walba oo information oo ku quseeyo dhan halkan ku qoraysaa. marka halkan aad English taqaanid waxa way aad kuma dhibayso badanaana waxay leeyihiin boxi la buuxiyo kala hadda married oo kala ma tahay oo kale single hadda tahay oo kale oo ku qoraysaa dhamaantood waa sanduuqyada safarnaysa passport travel document passport kaaga haysatid oo ku travel gareynaysa ku bixaysid oo kale. marka waa sidaan dhamaantood marka buuxiso kadib ayaa leedahay save and continue. save and continue ana igama yeelayo sababtoo ama buuxin haddaan buuxiyo wuu iga yeelaya. marka stepkan kood application kaaga aad ku xareysato ku geenaya kadib haddana paymentigan oo lacagtan €99 la iska rabaa oo ku geenaya kadib upload documentiga kale meeshaan uu ka rabaa marka inaad documentiyada passportkaaga iyo waxyaabaha haysatid oo kale oo dhan dhamaantood ayaad ku dirsanaysaa. marka qaabkan waa qaabka badana ay qolooyinka agenciyada iyo waxyaabahaas ay ku xareeyaan laakiin adiga kaliya sidaan u xareyso qofka ka caawiyo. hadda rabtid xataa information dheeraad oo kale halkan ka wacaysa lambarkooda waa kan call use free lagu yiri don't not always marka halkan ka wacaysa marka lambarkooda daaratid lacagta waatan. marka website-kan waaye website-ka aan ii soo baxay in uu macnaha xoogaa yahay midka ugu macquulsan ee Rome. waxaan ku leeyahay wadadaas raac muuqaal kale oo xiiso leh inta ku kulmi doono waxaad iga tagaysaa sidaas iyo nabadgelyo.